maanta oo kale 15 Oktoobar sanad waliba waxaa adduunka intiisa kale laga xusaa maalinta farxalka adduunka. wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya ayaa maanta magaalada Baydhabo ku xusay maalinta farxalka adduunka. waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Xaaji iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cabdullaahi Isaaq Ganey iyo gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Cabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee wasaaradda caafimaadka. munaasabadan ayaa ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayadoona mas'uuliyiinta munaasabada ka qayb gashay dadweynaha tusayay qaabka ay isaga ilaalin lahaayeen nadaafad darrada gacmahooda iyo qaabka ugu wanaagsan ay arintaasi uga qayb qaadan karaan. ayadoona howlwadeenada wasaaradda caafimaadka iyo tamarta iyo kheyraadka biyaha tageen qaar ka mid ah xarumaha barakacayaasha ku yaala magaalada Baydhabo ayagoona ay u qaybiyeen saabuunta iyo agabyo loogu talagalay inay ku nadiifiyaan gacmahooda. farxalka adduunka oo lan aqoonsanay dhammaan adduunyada oo la ka beegay munaasabadan oo lambi maalinta galnya dhiga marka mayba ku turjumaysa taasi in muhiim ah in galnya la isku dhigo mar walba oo ay tahay mas'uul gal mar walba oo ay tahay la raaisun gurulaam yaalka la bara dadka weyn yoba mar walba salaadii weysaysadaan laakiin yaalka ilan walba iyo dadka lan sheegay in uu tahay galnya dhiga muhiim ah sababtoo ah cudurrada la qaado kulli may waha wala galnya jeermis ka saaran ku qaade marka maylan gorday maanta in limbi maalintii galnya dhiga adduunka saasashanti muhiimadu isleey marka xafladun geekis aragay tan yeedo sin walba geeka lan ay meenin naga maalintii farxalka adduunka marka wala United Nation ayanti maalintaasi muhiimadii ka sokortan may faraane dadka dhamaantiyo iyago waliba hatana jara meel raayus cudur dilaa oo ay toosay simil soo dan corona adduunka wali ku jar oo aan erabtaran dirdaarta hayt in galnya mar walba dhiga tiyaatana kaalmeystan si tiya may hoojiyaas in muhiimada farnya dhigaasay galnya dhigaasay iyo farxalka marka eedeeda ma santin may ida farxinka inaan ku qayb gala badhagan oo geeka 15 Oktoobar maalinta farxalka leen astay wal kasto muhiim ah sharciga ku hadalay oo diinta islaamka ku hadalaas inii la farxalada sharciga aan qaba yani qofku maduhun durmada madaasawqa inii sadijeer gacanta dhagada ilaa weel u galanta ingilin hadii jeer inii la weysaysada markaas dartay wali fahmaas inii sharcigan nadaafatu nisful iimaan marka saas dartay wal kasto la astay hal maalin leen astay wali ka tusaasay inii muhiim ayin geeka mayleen astay in dadka la wacyi geliyo anta jeer oo farxalka leen baahanyi in la wacyi geliyo shaqaalaha caafimaadka iyo marka galnya dhagaad isku galnya dhagoy ma hableen galnya dhagaada jara shay alaab la isticmaalo marka shaqaalaha caafimaadka iyo marka bulshada wacyi geliyo idan kama hasanyin wasaaradda wasiirka caafimaadka iyo wasiirka dawladda maaliyadda iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha wasaaradda biyaha dhamaantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib maanta oo maalinta asteenta oo maalinta farxalka oo gacmo dhigil eray oo lan astay maalinta 15 Oktoobar 2020 taasoo oo kama hanagaana dadka qaban qaabiyo oo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha kumida tiimkaas ay ku wada shaqeeyeen yoon kama hanagaan inay oo xaq u qayb galan xafladda asayti oo ka hadalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaciye taasoo oo maalintaas asayti oo muhiim ah inay oo farxalka asayti dadka islaamu inay oo maalin walba 5 salaad tukadaan weysaystaan laakiin dadka dhalinyarada ciyaalka iyo meel raayis cudurrada ku dhacay gacmo ku dhiga maalintaas asayti astay maanta oo kale maalin muhiim ah inay oo ku shaqeey caafimaadka iyo biyaha in gacmo la isku dhigo oo nadaafad iimaanka barjeeyo marka insha Allah may rajaynay inay oo la ku digtoonaado inay gacmaha city siwiin la isku dhigo inay oo farxalka la zaa'im maalin walba dhalinyarada ciyaalka iyo maadaama cudurka corona viruska COVID-19 uu jara inay muhiimada inay la ku digtoonaado wala badan oo cudurrada sheeno saas darteed marka eedan maasti wasiir dhamaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tamarta biyaha dhamaan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib maanta farxad weyn ayay noo tahay maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 15
October waa maalinta farxalka adduunka. Maalinta farxalka adduunka waxaa loo dhahay waxaa waaye in bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada adduunka wacyigelin loo sameeyo oo ah in farxalku muhiim uu yahay. muhiimkaas oo yahay waxaa laga yaabaa in qofkii asigoo cuntada markuu arko asagoo farxalan isku cunayo asigoo musqusha kasoo baxay in cuntada isku cunaa laga yaabaa. marka muhiimadda ay leedahay waxaa waaye in gacmaha la farxashto caafimaad ahaan qofka bini'aadamka nafsidiisa ayuu ku badbaadaa. annaga waxaan ahay dad muslim shanta salaada dukanaa waa weys qaadanaa. weysqaad keliya maan haddii aa weys qaadatid weysada kuu dhooran tahay waxaa laga yaabaa in dad badan aad salaantid. haddaad salaantid waxaa muhiim ah inaan gacmaha farxalatid. weysada maan gacmaha wasaqda marka xijaabayso qof walba uu ku salaaman waxaa waaye inaan gacmaha iska farxalataa fiican intii aan cuntada aan cunin. waxaan qabaa waxaa bulshada reer koonfur galbeed dhammaantood inay muhiim ay u tahay maalinta farxalka adduunka in laga faa'iideysto. dhalinyarada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tamarta biyaha wacyigelinta ay sameynayaan ma ku koobno magaalada Baydhabo keliya meel kasta ayaa lagu xusaa maanta. xuskaas waxaa loo xusuuyaa waxaa waaye in nadaafadii laga shaqeeyo sida cudurrada badan u faafin. waxaan jeclahay waxaa bulshada inay ka faa'iideystaan maalintan soo xasuustaan farxalka muhiimka uu leeyahay ka faa'iideystaan maadaama hay'adihii internationalka iyo wasaaradihii iyo dowladdii dhammaan ay u wasteen 15 Oktoobar maalinta farxalka adduunka. waxaa loo istay in xasuusin loo sameeyo. Cabdullaahi Maxamuud Saad Cabdilcafaan. maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel? haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. ma og tahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto? ma og tahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay? waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave-yo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo baanka dahabshiil ah, dalxiis aad ku degto hoteelada Damal, iyo weliba 10 gaadhi oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaadhayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111.